ascaanood ayaa sheegaya inuu meel iska soo madoobeeyey mid ka mid ah qolyaha ugu farataagtaaga roon ee ganacsato la yidhi kaasoo magaciisa lagu sheegay maxamed jabuutaawi. wuxuu sheegay in ganacsigiisii lasoo weeraray islamarkaana loo daba ka dhiibay duul kale. wuxuu sheegay in lala kacay isla jeerkaasna lasii wado meelo ku dhow tukaraqiyeynta haysa. wuxuu ku gadaatacay inuu ka cararay labadii kabood oo macawistii tuuray oo aanu shaati la tegin. wuxuu bitiyey inuu jidka ka leexday oo uu afka saaray dooxada dhoodi. waxaa la arkayay isaga oo ay daba aluuban yihiin marya calas beeshiisa oo uu ku soo hubeeyey armi jaabajaaba oo isugu jiray jigre iyo maadhinyare. wuxuu ku hadaaqay inay niman idoorihii dabada kaga jiraan oo uu ugu hayo tola'aye iyo muusanow. wuxuu sheegay in la isaga soo dhigay nimanka magacooda la yidhi liibaan yuuro iyo hebelka isisto. wuxuu sheegay in qaadka miirooga ah ee laga soo handaabiyo sidan iyo carre washaysi uu laba u qaybsanaa islamarkaana ay qayb lahayd beesha dhulbahante.